waa 70 jir stylish aniga filimkan si gooniya u qiimeeyay odaga idinkana soo qiimeeyay odaga xataa harwashnimadii iyo culeys ka muuqdo meel laga dhigo odaga waa soo si aan loo soo shubo dhalinyaro u ekaaba caata ee kaaliska arag waxa kale oo adana ku dilaa sidoo live u ah shacabtiisa uu sameeyay caadi ma ahan dansiga kaba sii daran actionka the way lagu sameeyay elevation mask inaba caadi ma ahan marka uu xanaaqo odaga soo laba qarxayo dhinac walba laga dhisay ee jiru hadda analyze ma u baahno waa legend intaas film soo jilaa wax kasta ay leeyihiin wax iska sahlan laakiin waxaan ka hadlayaa the way anal rabadi uu present gareey jirin jeedi in muddo ma arkin director sandam uu present gareey waana typically sida ay taageerayaasha rabeen shacabtirada soo shacabtirana caadi ma ahan markay action ka noqotana sidoo waali u sameeyay caadi ma ahan waxa kaaga daran dane markay noqotana xogaa kartida iyo raganimada iyo jiru wax kasta oo typically family u baahnayeen waa loo keenay filmkan taageerayaashiisa san karantiga waa raxaysteen shot blockbuster waa kan waliba huge blockbuster inuu noqdo u qalmi saaxiibayaal 300 korona ganacsigiisa uu gaaray markaan soo qaadna sheekadu waa iska simple intii aan ka sheegnay review wala dabcan intii la wajiru oo kamid ah taliya ciidamada sirdoonka soo kala sabdo u badbaadinayo ninka wasiirka arrimaha gudaha kadib ilmihiisa dabcan college dhigtaan oo dabcan college ka tagaaso ilmihiisa la falgala saaxiib uu noqdo xaaskiisii waa kala tageen dabcan ninka odaga niyantara abeed ama sodgiisa isku dhaceen kadib waxa waaye niyantara ninka ogaanaysa inuu meesha college ka joogo way ka daba imaanaysaa way fahmaysaa odagii la soo weeraa jiru waxa lagu soo qoraa dabcan in la dhaw badbaadi cidaan guriga markuu ugu tago ee khilshan ninkan la soo diray tali markay waxaan wasiirka sabdo wuxuu leeyahay ugu fiican idin soo diray ninka meel jooga ma soo idin ka ceshana odaga wuxuu leeyahay ha ii joogo markaas uu karkarina odaga u dhibay niyantara u dhibay sida dabcan isaga daw wareegay sheekada dadka soo weeran dabcan ogaana jirin jeevi haddana waxa imaanay fantikesh oo gabadh rab inuu guursado fantikeshi asiga qorta isku galaysa u shactireenay u xifaaltamaan caadi ma ahan niyantarana hadwaaba lagu yaqaan xanaaqda iyo jinniyaha spiritka ee leedahay ultima soo family u difaacayo vinki sidoo garab siina war meesha filna ka dhacay logic meel iska dhig akshamada horta ana badi waa ka dhis odaga akshamo wuxuu u sameeyay dib iyo aan caadi ahayn shacabtiradana jirin jeebis u shactirey ana yaabay dhalinyaro isaga dhig waraam jirax ka saan muu jiri karam aaba wax ka baraniyo yes ram talented waa complete talented la wuxuu u baahan director noocan oo kale u baahan wallahi san karantiga odaga waa baashaale sireerta lagu efeesad u baashaaleen ayuu jirin jeebina shaashada ugu baashaalay 2 saac iyo bar iyo ka badan filmka ana u baahan iga dhamaado وانا عادي هن على اي حال مركز سنكرانتيكا فصنام سند كور او سمينينكي فانتيكاش هادنا مانا شنكرا برا برساد غرو wuxuu bartay director kan dheerta lagu feestada u baahan yihiin shacabtirada heesaha ku jirta filimka caadi ma war odaga waa laga dhisay marmarka qaarna emotional caadi ahaan u leeyahay ilmaha xataa dawayso u kasbanayo war filimka waa dhameystirna dhankayga waxa waaye sheeko simple oo ogaada twist antaan iyo waalid iyo waxaas kuma arkaysin simple straight forward jilinka jiiro u daawo niyantara kibirkeeda u daawo vinki markuu soo gala fantikesh filimka soo u kala kicina u daawo war meel oo filimka xun yahay dhankayga waa alag id waa kusoo raaxaystay 4-star movie si filimkan without logic meel iska dhig sheeko twist antaan mara laakiin waa live hearted oo kala iska argado u baahan ka dhamaanayo waa calay taxal waa filimkan dhankayga waa iga gaday 4-star si saxabiyaal iswarsi malahan idinkana bal soo daawada